السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka kafadaha ganacsiga oo ah barnaamij toddobaadle ah oo toddobaad kasta aad ka daawataan TV-ga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland qodobada barnaamijka kafadaha ganacsiga toddobaadkan aan idinku haynana waxa kamid ah qaabkee looga faa'iideystaa xoolaha dalkeena lacagta shilin Soomaaliga oo meelo badan oo kamid ah ay dadka Soomaalidu ee ganacsatada ah ay diideen ayaa yeelatay saameyn ballaaran oo dhinaca ganacsiga ah iyo dadka noloshooda hooseyso magaalada Balad Xaawe ee gobolka Gadana waxa laga hirgeliyay warshad cusub oo soo saarta biyaha sifaysan qodobada dibadda ee barnaamijka kafadaha ganacsiga aan idinku haynana waxa kamid ah jasiiradda Mauritius oo martigelisay shir looga hadlayo yaraynta saboolnimada qaaradda Afrika qodobadaas iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan ayaa barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa halkan alaaba barnaamijka idinkala socodsiiya anigoo Axmed Cabdi Maxamed Axmed Toronto dhanka duubista barnaamijka iyo farsamadiisana waa saaxiibkay Daahir Cabdulla Cali mar kale ku soo dhawaada daawadayaal barnaamijka kafadaha ganacsiga aan ku bilownay dhaqaalaha dalkeena waxa door weyn ka qaata ka faa'iideysiga xoolaha oo looga faa'iideysto habab kala duwan waxaanu idin haynaa warbixin ku saabsan sida looga faa'iideysto geela email oo lagu xanaaneeyo duleedkan magaalada Kismaayo halkani waa xarunta lagu xanaaneeyo geela email oo ah geel caanihiisa loo iibgeeyo magaalada Kismaayo mashruucan geela email waxa magaalada Kismaayo ka bilaabay Axmed Samow sanadkii 2013 xilligaasi Axmed mashruuca geela waxa uu ku bilaabay 10 neef oo geel ah haddana waxa uu marayaa 50 neef oo geel oo 25 kamid ah ay hadda dhaleen halkii xilli waxa geelan laga lisaa caano gaaraya ilaa 60 litir oo caano ah waxaana halkii litir lagu gadaa lacag gaaraysa 38,000 oo shilin Soomaaliya oo u dhiganta $1.75 bangiga Salaam qaybtiisa horumarinta ganacsiga ayaa waxa uu Axmed Samow ka helay maalgelin gaaraysa $22,000 oo dollar taasi oo uu ku soo gaday 25 neef oo geel ah oo ku sii ballaariyay mashruuca uu waday ee horumarinta geela email lacagtaasi Axmed waxa uu ku celiyay bangiga hal sano gudaheed isagoo bishii bixinayay $180 Axmed Samow ayaa sharaxaya sida uu geelan ku xanaaneeyo maadaama geela uu u baahan yahay cunno biyo iyo daryeel aad u fara badan mashruucan waxa igu kalifay aniga geelay baan ahay geelana waa dhaqlada xoolahana inaad leedahay inay ku leeyihiin inaad leedahay baa fiican sidaa darteed 2013 bishii November baan mashruucan aan isku tirageeyay inaan isku dayo 10 halaad baan ku bilaabay ilaa aan ka gaarsiiyay ilaa 50 halaad aan ka gaarsiiyo geelo sanadkii 12 bilood way 12 ka bilood 4 bilood raashin uu isaga isku 4 biloodna waa loo kala gooyaa oo waxna waa soo helaa waxna muxuu ahaayo waa daaqayba iska isbedela afarta kalena daaq waxa la siiyaa raashin baa la siiyaa ama dibadda ha ka imaado Abu Dhabi ha ka imaado oo bahal yiraahdo muxuu ah calaf ama maangaal intaas la siiyaa subaxdii waaga markuu barina wuu dareeraa 8 saacana ilaa 9 saacana wuu imaadaa caanuhuna laba waqti baa lisaa subaxdiina waa la lisaa galabtiina waa la lisaa dad badan oo isticmaala caanaha geelan laga liso oo halkan u imaada gadashada caanaha geela ayaa rumaysan in caanahani ay ka wanaagsan yihiin kuwa lagu gadayo suuqyada magaalada Kismaayo Carab Cabdi Shaqlane waa mid kamid ah dadka halkan u imaada caanaha geela barnaamijka kafadaha ganacsiga ayuu u sheegay in maalin kasta uu xaruntan ka iibsado caano gaaraya 3 litir ilaa 4 litir oo caano ah bishiina uu ku bixiyo lacag gaaraysa 3,500,000 oo shilin Soomaaliya oo u dhiganta $150 maalinkii geelan la bilaabay 2013 ilaa galabta oo taariikhdu ay taan u maleynayaa 2017 bishii 9aad waan ka qaataa caanaha iyahow caanaha magaalada lagu gado 100% waxa la arkaa inay safe ahayn caanaha haddii laga soo qaado baadiyaha waa la soo karkariyaa 6 saacad iyo 5 saacad ay magaalada imaadaan haddana mar labaad baa la kululeeyaa caano dhay oo nadiif ah ma helaysid marka ilmaha magaalada ku dhashayna waa wax ma aragtay bushi badan marka caruur yar yar oo ii joogta dartood
waxaan maaragtay ogaaday caruurta caanaha geela nadiifta inay u fiican yihiin waana kaga raystay caana boodhihii iyo caanihii la karkarinayay iyo caanihii cunugii waa ka suusaceen iyo barnaamijka waan kaga raystay marka ilmahana wax badan baan kaga gartay marka sidaa darteed caanahan baan toos ugu xidhnahay muddada intaa dhanna waan ka qaadanhayay alaanana waan ka qaataa marka maana ku darsanin caanahan xagga caafimaadka ilmaha iyo xagga ilmaha korsiimahoodaba wax fiican baan ka dareennaa geela halkan lagu xanaaneeyo waxaa la siiyaa wax loo yaqaano maankaal iyadoo maalintii uu cuno 10 kiilo oo maankaal ah taasi oo maalin kasta loogu soo gado lacag gaadhaysa 480,000 oo shilin Soomaali ah oo u dhiganta $22 waxaa arrintan sharaxaya Anas Sheekh Maxamed waxaanu geel cunay waxaa la yiraahdaa horta waa baasha sinta le markii la shiido wixii qashin ahaa iyo nidaamkii iyo saliidda laga miro waxay ka tagtaa way Soomaalidu marka magac waxa u yaqaanaan maankaal marka luqadda Soomaali markii hadda dib loogu noqdo waa maankii waad wada garanaysaan ruuxa maankiisa waxa weeye ay ka heshay way maankii baa ka helay geelu awal hada dhir iyo xokaal daaqdaaqi jiray oo tanna waa mid uu aad jecel yahay waa mid aad jecel yahay waqad aad arkayso nirgihii iyo geelin wada boobaya tan hadda waxaad moodaa inaan hadda wala si gacanta lagu siinay haddana waa kana wixii bay doonaysaa marka waa shay geelu aad jecel yahay way waa gartay marka shaygan salaan gacanta waxay ku soo gudbinaysaa geela waxay siinaysaa allergy xoog badan geel calooshiisa waad aragtaa cawska markuu soo cuno waxa laga yaabaa 2 saacadood kadib geelu inuu maartay calooshiisa ay isu tagto oo maartay ay baabaado laakiin tan marka cunto ilaa aroortii calooshiisa saasaanaysa calool qurban buu samaynayaa xagga caanaha ka waran caana badanna wuu yeelanayaa wuu xiiranayaa dhogortii xumad way ka duulaysaa manka maankaalku waa geed noocaas sanadihii dambe ayaa meelo badan oo dalka ka mid ah lagu arkayay geela oo ka mid ah xoolaha aan sida weyn u dhaqano uguna faano in loo dhaqdo sidii awal hore loo dhaqi jiray si ka duwan waxayna taasi horseed u noqotay in geelu uu noqdo il dhaqaale oo dad badan oo Soomaali ah ay uga ganacsadaan siyaabo kala duwan lacagta dalka ee shilin Soomaaliga ayaa meelo badan oo ka mid ah dalka ay diideen ganacsatada Soomaaliyeed taasi oo saameyn ku yeelatay ganacsiga iyo dadka ay noloshoodu hooseyso waxaa warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada Garowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland inooga soo diray wariyaheena Cabdiraxmaan Ciise Cumar iyadoo tan iyo burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1991 ay meesha ka baxeen adeegyadii uu qaban jiray bangiga dhexe ee Soomaaliya oo ay ka mid ahaayeen samaynta lacagaha iyo jaangoynta sarifka ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxa ay soo tarayeen lacagaha faalisada ah ee gudaha dalka lagu daabaco taasi oo keentay sicir barar iyo burbur hantiyeed waxaana ka mid ah meelaha ay saameynta xun ku yeelatay deegaanada Puntland oo bilihii la soo dhaafay uu ka jiray sicir barar baahsan sarif baaxaadagaya iyo kala soo caashin Soomaaliga dhibaatadaasi oo keentay in noloshu ku adkaato dadka danyarta ah oo awalba xal mastuur ku noolaa iyadoo meelaha qaar ay ka dhaceen banaanbaxyo looga ashtakoonayo kala sooca lacagaha iyo kala duwanaanta sarifka isla markaana bulshada qaybaheeda kala duwan ee dawladda ugu baaqeen in wax laga qabto lacagaha laga soo daabulayo gobolada kale ee dalka oo ay sameeyaan sida la sheegay warshado gaar loo leeyahay oo meelo qarsoodi ah ku yaala halkaasaanu muxuu ahay taanu tubanahay wax najiita ah oo qof noo yimoon yiri war maxaa qabtaan hadday dawlad tahay hadday cid kale tahay war maxaa qabtaan lama hayo waxaanu ka cabanaynaa lacagtii oo nala ku nacay oo dhulka saa loo dhigay wax noo socon lacag baan haysanay xunaho ayadu waa tagtay taas waxba waa lagu bedeli way kii ariga waa diiday kii kale waa diiday tii qudaar maanta xaafadihii baa hoosta ka wada xirtay guryihii lacag wax sameeya aan la aqoon meel ay ka timid aan la aqoon oo marna bad noqonaysa marna la waayay dhibaatada ayaamaha kan dhacday waad ka wartay doolarkii salku tagay maciishadiina meeshii bay taagantahay aantirood markii doolarku uu kacay hal mar baa guryihii in badan dadka hoosta ka wada xirteen haddaba wasaaradda maaliyadda Puntland ayaa soo saartay go'aankii laga sugayay in muddo ahba iyadoo amar ku bixisay inaan gabi ahaanba la kala sooci karin shilin Soomaaliga laga isticmaalo deegaanada Puntland sidoo kalena aan loo samayn karin kala duwanaan sarif sida uu ku dhawaaqay wasiirka maaliyadda Puntland Cabdullaahi Siciid Carshe war saxaafadeed ka soo baxay dawladda Puntland kadib markii ay shir isugu yimaadeen maanta oo taariikhdu tahay 7 bishii 9 2017 wasaaradda maaliyadda Puntland iyo bangiga dawladda Puntland shirkaas
waxaa lagu falanqaynayay diidmada lacagta shilinka Soomaaliga kala gurideeda iyo sarifkeeda kala duwan waxaana ka soo baxay war saxaafadeedka qodobada tan ayaa ka soo baxay qodobka koowaad lacagta shilin Soomaaligu waa astaanta qaranka dal kastana astaantiisa qaran waa lacagtiisa Puntland kama duwana cidii ka hor timaadana waa qaran dumis qodobka labaad dawladda Puntland lacagta shilin Soomaaliga waxay ku qaadaa canshuurta waxayna ku bixisaa mushaharooyinka ciidamada shaqaalaha dawladda meel ay ku diideen ma jirto qodobka saddexaad shacabka reer Puntland waxa laga doonayaa in ay lacagta shilin Soomaaliga qaataan iyaga oo aan kala gurin sarif kala duwan looma samayn karo arrintaas oo diin ahaana aan banaanayn hay'adaha dawladda ee fulinta shaqada tan ku leh waxa laga doonayaa in ay waajibaadkooda shaqo ka gutaan inkastoo uu soo baxay go'aanka wasaaradda maaliyadda la xiriira qaadashada shilin Soomaaliga iyo jaangoynta sarifka haddana waxaa weli jira jahwareerka suuqa maadaama sida la sheegayo ay jiraan makiinado lacagaha sameeyo oo ku yaala meelo ka mid ah Soomaaliya kuwaasoo lacagaha lagu soo daabaco si dhuumasho ah Puntland loo soo geliyo isla markaana keena sicir barar iyo suuq aan fadhin magaalada Balad Xaawe ee gobolka Gadan iyo warshad soo saarta biyaha sifaysan sida warbixintan uu ku eegayo wariyaheena Shariif Axmed Taajir shirkadda biyaha ee Najmo waxay ka mid tahay shirkadaha ganacsi ee dhanka soo saarista iyo suuqgeynta biyaha nadiifka ee ka howlgala deegaano badan oo ay ka mid yihiin gobolka Gada iyo sidoo kale gobolka Waqooyi Bari dalkaasi Kenya iyadoo shirkaddan biyaha ee Najmo ay tahay shirkadii ugu horeysay ee laga hirgeliyay degmooyinka Balad Xaawe iyo Mandera ee soo saara biyaha nadiifka oo ay bulshadu ku diirsadeen tan iyo asaaskii shirkadda biyaha ee Najmo waxay dadaal dheer ugu jirtay inay ka qabtirto bulshada helitaanka biyo nadiif ah iyadoo deegmooyin badan oo ka kala tirsan Soomaaliya iyo Kenya iyo Itoobiya ay u iibgeyso biyaha waxaana taasi ay ka dambeysay dadaal iyo juhdi fara badan oo ay ku bixiyeen maamulka shirkadda biyaha Najmo sidii ay u heli lahaayeen bulshada ku nool deegaanadaasi biyo nadiif ah iyadoo shirkaddan ay ka shaqeeyaan dad khubaro oo laga kala keenay Kenya iyo Soomaaliya Yusuf Ahmed Nuur oo injineerka guud ee shirkadda biyaha Najmo mar uu waramay barnaamijka kafadaha ganacsiga ee Jubaland TV ayaa waxa uu ka warbixiyay waxyaabihii keenay in shirkadda soo saarta biyo nadiif ah ee laga hirgeliyay deegaanada ay haatan ka howlgashay shirkadooda isagoo tilmaamay in shirkaddu ay fursado maalgashi dhankooda siisay ganacsatada kale ee doonayay in maalgashiyo kala duwan ay ku soo kordhiyaan maadaama ay shirkaddu ka howlgashay gobollo badan oo xuduud wadaaga shirkaddan waxaan aasaasnay 2008 waana shirkaddii ugu horeysay oo biyo sifayso gobolka biyo sifayso oo laga furo way ilaa ay xilligaas ayaga ilaa maanta aan kula hadlay waan shaqeynaynay markaan aragnay baahiyo badan oo gobolkii ka jiro oo biyo nadiif ah marka laga soo rarayo Nairobi oo transportation soo galaayo oo dhib badan aan aragnay baan waxaan furnay warshadan si dadki helaan biyo nadiif ah baahida ay uga baxaan Soomaaliya waan ka howlgalnaa ganacsataan biyaha u gudbinaa ayagaas ilaa Doolow Yurkud magaalada madaxda gobolka oo Garbaharey meel walba luuq intaba ayaga geeyo oo biyaha u sii iibgeeyo annagana baahidaasaan ka tirnaa oo xafiis ay ku leeyihiin Balad Xaawe ayagaasaan u sii gudbinaa ka gadana ayagana way sii gudbiyaan annaga naga qaatay biyaha oo Balad Xaawe degan baa xafiisyo kule oo biyaha sii gado oo meel walba gaarsiiyo annagana waxaan ka caawinaa inayna biyahaas ka go'in oo biyaha Teeri Nairobi laga keenayo baabuurta soo jijibinayso wasaqada leh oo dhabaha maadaama uu dhabaan hodistan uusan dhabaha hagaagsan ahayn oo uu raf yahay biyihii halkaas laga keena way baabi'i jireen hadda waad aragtaa biyahan ayagoo sidooda qof walba gacanta sidooda ku gaarayaan marka nimanka dadkaasaan ka caawinaa annagana waxaan ka shaqeynaa Teeri halkan Ceelwaaq Raamo ilaa hodistan oo dhan biyaha waan geynaa Mandera dad badan baa ka shaqeeyo labada dhinacba aad ugu shaqo abuur badan ka helay marka kasakow ganacsigan keenay oo biyaha nadiifta oo looga baahida laga baxay haddana
shaqa abuurka weyn inaan kow ka nahay dad baahi badan aan daboolno shaqaale badan qaadanay dhankii korontada dhankii biyaha intaba aan ka qayb galayno oon baahiyo badan aan daboolnay baan waa tahay maadaama shirkaddu ay tahay shirkad ganacsi fursado ma uga bannaan tahay dadka kale ee ganacsatada in ay shirkaddii maalgashi ka samaystaan way uga bannaanta dad badan baa uga bannaan dad baa hadda nala soo xiriiray oo sida ceelwaaqoo kale raamoogo kale inaan soo dhaweyno biyihii aan qiimo jaban ku siino ayagana ay sii gataan dad sii shaqaalaystaan baabuur ay kireystaan waa ku tala jirnaa waana dad badan horey maana ugu samaynay dhanka samafallada waxaasoo dhan waa ka shaqaynaa waxaan ugu baaqila annaga markaan biyahan bilaabaynay wax yar bay ahaayeen dadka maba ayna aqoon baan dhihi karnaa hal caagadaa la qaadanaya ama cunug baa daawo lagu siisan jiray ama qof baa caanahan boodharka ku qasan jiray wax kale ma jirin laakiin hadda qof walbo waxaan gaarsiinay inuu biyo nadiif cabo oo uu quality-gooda arko malaariyadii wixii socdo dhan ay hadda ay sii yaraanayso marka dadka waxaan ugu baaqayaa qofka inuu biyo nadiif tahay ogaado oo qofkii maalgashi sameynaya qofkii ka sii ganacsanaya waxaas oo dhan aan ka caawin doono dhanka kale waxaa jira in shirkadda biyaha ee Najmo ay fursado shaqo abuur siisay dhalinta shaqo la'aantu haysi iyadoo shirkaddu ay degmooyinka ay ka howlgasho ay sidoo kale uga shaqeeyaan dhalinyaro da'yara. Mimi kwa majina yangu naitwa Fred. Mimi ni mkazi wa Mombasa na nimekuja hapa kwa muda sasa, nina kama miaka 5 nafanya na hii kampuni ya Najma, na tumefanya kazi mingi mzuri na watu wanapenda. Tunatengeneza maji ya Najma, hii ndio kampuni yetu, na tumeanza tukiwa ya hali ya chini na hadi kufikia sasa hivi tumeweza kufika juu na tunafanya kazi ambayo inapendeza watu sana. Tumejaliwa kuweza kusambaza maji yetu katika sehemu nyingi sana. Sharif Ahmed Tajir, idaacadda iyo TV-ga Jubbaland, balad Xaawo. magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudugna waxaa dhawaan xariga laga jaray xarun ay maal gashteen qurba joog Soomaaliyeed taasi oo loogu talagalay in xilliyada fasaxa ah ay caruurtu ay ku damaashadaan sida uu warbixintan inoogu soo diray wariyaheena Aalaba Gaalkacyo inooga soo warama Cabdikhayr Maxamuud Jaamac. madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey ayaa xaruntaasi xariga ka jaray wuxuuna sheegay in maalgashiga qurba joogta Soomaaliyeed ay muhiim tahay isla markaasna laga doonayo in ay dalka maalgeliyaan si ay dhalinyaro badan shaqo u helaan. runtii noo ah inaan kala soo qayb galno daafurka Lucky Playground oo laga furayo magaalada Gaalkacyo. runtii waxaa la ii sheegay inay dhaqaalaha lagu sameeyay iyo fakarka intaba ay lahaayeen dad qurba jooga investment kooban oo muhiim ah oo runtii dalku u baahnaa weeye. waxaan marka ugu horeysa u bogaadinayaa maalgashiga ay sameeyeen qurba joogtu iyadoo mar walba la lahaa dalkiina hal la maalgashado. mar labaadkana waxaan ku faraxsanahay waxa loo shaqeynayaa waa dhalinyarada iyo ciyaalka soo koraya in meel ay waqtigooda ku lumiyaan xilliyada jimcaha iyo ciidaha iyo fasaxyada iyo in loo sameeyay magaceedana loo bixiyay Lucky Playground. waa meel bilicsan runtii. wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawladda Puntland Cabdiweli Xirsi Cabdulla Indhaguran ayaa dhankiisa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay ganacsiga noocan oo kale ah waxaana uu sheegay in ay gacan qaban doonaan ka wasaarad ahaan. hambalyeynaya ganacsigu ma ahan raashinka iyo xoolaha la dhoofiyo iyo raashinka la keeno. ganacsiga bannaan baan si gaar ugu mahad celinaya dhalinyarada sameysay oo ay fahmeen yani service-kan fiican oo khidmadaad aan horey loo bixin iyagu bixinaya. waayo waxayna soo arkaynaa duplicate ama wax isdul saaran raashinkii oo la keeno iyo xoolihii oo la dhoofiyo kaliya ayaa dadkii ganacsiga u arkeen, laakiin noocyadan ganacsiga oo adduunyada ka jira oo casriga ah oo aan dadkeennu aqoon oo ay u yaqaanaan inuusan ganacsi ahayn
dhallinyarada ku fakartay ayaan si gaar ugu mahadnaqayaa. inta kale waxaan la wadaagaa madaxweynaha sidii fiicnayd oo aad wax u qabateen waa hambalyo wixii dawladda xaggeeda ku aadan insha Allah wayn la garab istaagaynaa. qaar ka mid ah waalidiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Gaalkacyo isla markaasna caruurtooda keenay goobtan loogu talagalay in caruurta lagu ciyaarsiiyo ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin ayna heleen goob ay ku ciyaarsiiyaan caruurtooda maalmaha ay fasaxa ku jiraan. bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Mustafa Yuusuf Cabdikariin kamid ah waalidiinta meesha booqatay yimid. aad baan ugu faraxsanahay magaalada aad bay wax badan ugu soo kordhisay. magaaladu waxa weeye aad bay mar hore ugu baahnayd horumarkan iyo ciyaalka waxa yeelay ciyaalka caalintiisa aad u badnayd aad bayna waxa weeye u anfacaysaa oo aad bay waxa weeyaan waqtiga fasaxa iyo waqtiga jumcooyinka kale aad bay ciyaalka u anfacaysaa waqti badan bayna qaadanaysaa. marka waxaan dhihi lahaa aad baa mar hore loogu baahnaa oo aad baa loogu baahnaa dhammaan waxaan dhihi lahaa waalidiinta marka ilmaha waxa weeyaan farxadooda la qaybsadaan waxa yeelay ilmuhu farxadda ay farxaan waxa weeye wax badan bay soo jiidanaysaa oo waalidku inay ilmaha ka warqaadaan oo maalinta jimcada oo kale inay soo wadaan oo waxa weeye meesha ay keenaan oo ka warqabaan oo la socdaan waa aad u fiican sida ciidaha kale ma sha Allah aad baan soo dhaweynayaa waxa weeye muhiimadeedu meesha aad bay magaalada waxa weeye ugu badisay aad baan loo baahan yahay waana loo baahnaa mar hore loo baahnaa in la sameeyo. sidoo kale qaar ka mid ah caruurtii goobtaasi la keenay ayaa iyagoo la hadlaya TV-ga dawladda Jubbaland waxa ay sheegeen ama ay ka hadleen waxyaabihii ay ka heleen goobtaasi ee ka xiise geliyay. ciise cabdi jaamac meeshan aad iyo aad bay fiican tahay waxyaalo badan baa yaala ciyaalkana aad bay faraxsan yihiin ciidana la furay ciyaalka aad iyo aad bay u baashaalayaan in badanna mid anaga dambayso kala kala ciyaar wax fiican ka سعي يا كبودي باك وعبون يكعيار قاعد فتح خالد داير waxaan salaamayaa dhammaan waalidiinta hooyada iyo aabahay iyo dadka muslimiinta meel kasta joogan waxaan ku salaamayaa salaata islaamka assalaamu calaykum waraxmatullah maamulaha xaruntan Cabdiraxmaan Matoote ayaa dhankiisa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay magaalada Gaalkacyo inuu ka hirgeliyo xarun ganacsi oo caruurta lagu ciyaarsiyo isla markaasna qiimo yar ay ka qaadayaan waalidiinta caruurtaasi wada aad baan ugu mahadcelinayaa maantana waxay arkayaan mirahii ka soo baxay yani intii yareyd ee contributionka ay ka geysteen tan waa qaybtii feeskii koowaad insha Allah waxaan rajayn doonaa qaybo kale inaan kusoo darno qaybtaas bay ahayd qaybta kale waad arkayseen oo waxaa ka shaqo helay dad deegaanka u dhashay ama deegaanka magaalada gobolka Mudug degan Gaalkacyo oo ilaa iyo 14 qof ah qaar wali ay ka maqnaayeen kamarada ka maqnaayeen gabdhaha ku jiraan waa maad ilaahay waa bilow waxaan rajayn doonaa guul waliba waxaa aad ugu mahadcelinayaa Mukhtaar iyo dadkii markii saxaafadda reer Gaalkacyo hadii aan la radio Gaalkacyo Jubbaland TV idaacadaha inta kaleba aad baan ugu mahadcelinayaa sida wanaagsan ee sharafta leh markii noo khidmad la'aanta ay noogu takuleeyeen inay bulshadooda ay gaarsiiyaan waxqabadka ama ku soo kordhay magaalada Gaalkacyo fursaddan waxay ahayd fursad bannaan loogana baahnaa dalka walina looga baahan yahay meel badan in la gaarsiiyo hadii aan lahayd degmooyinka hadii aan lahayd gobolada dalkiisa intiisa kale waxaan marka baa u dirayaa dhammaan Soomaaliyeed meel walba ay joogto inay markano horumariyaan dalkooda waxay awoodaan ay ku darsadaan ugu deeqaan waxa weeye qof walba wuxuu meel geysto uu miraheeda helaa taas waa baaqan ay u dirayo baaqa labaad ay u dirayo bulshada Gaalkacyo waalidiinta khaasatan markii goobta la imaado waa inay ilmahooda ay mas'uulina ka yihiin inay ogaadaan annagu waxa mas'uuliyadda naga tahay wixii dib wada inaan qabanno banaanka u saarno oo nala hadalno waxaan qiimaha service-ka inta la eg $1 aan uga qaadayna waxay tahay kan waxaysan iyo kan waxaysta inay si cadaalad ah oo ugu farxaan ciidda iyo maalinta iskuulaadka fasaxa ay tahay annagoo og korontada inay tahay qiimo aad u sareeya gobolka Mudug Gaalkacyo haddana saasay tahay waxaan u sameynaa halka $1 uga dhigna waxay tahay waxaan ognahay dadka inaysan isku awood ahayn isku dakhlan ahayn
qaar ka mid a shaqaalihii ka helay xaruntan shaqo abuurka ee ka shaqeeyey ayaa u mahadceliyey mulkiilaha iyo ganacsatada Soomaaliyeed waxayna ugu baaqeen kuwa kale in ay sidan oo kale qayb uga noqdaan. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Magacayga haddaan ku bilaabo magacaygu waa Garaad Axmed Daahir ka tirsan Lucky Playground Jubaland TV aad baa u mahadsantiin saa noo soo booqateen. ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala marka labaad maxamed matooto oo cabdiraxmaan matooto oo ahaa fikradda ninka iska lahaa oo yar qurbaawi ahaa oo fariin waxay u tahay dadka qurbaha jooga maanta inay dalkooda ay maal gashadaan dalka ayaga iska leh wadamada ay joogaan ma laha inay ku daydaan maxamed matooto oo kale cabdiraxmaan matooto soo u sameeyay galoonkan caalamiga ah dhalinyarada Soomaaliyeedna ay u tahay fursad shaqo banaan qof walba dalkiisa iskala Soomaaliya waxay ku maamaadaa hadii lagu sheegana waa la magacaygu waa Axmed Cabdi Yuusuf oo kamid ah shaqaalaha garoon Lucky Playground oo marka hadal badan haan ma buuxiyo baa la yiri wixii hadal aan oran lahaa oo dhan waxay yihiin walaalkay Garaad baa yiri aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala marka aad waxaan ugu sii mahadcelinayaa ninkii fikraddan keenay oo cabdiraxmaan matooto cabdikhayr maxamed jaamac barnaamijka kafadaha ganacsiga magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug imankana qodobada dibadda jasiiradda Mauritius ayaa martigelisay shir looga hadlayo yareynta saboolnimada qaaradda Afrika waxaa warbixintaas isugu keen soo dubriday oo inoo soo diyaariyay wariyaheena bashka maxamed nuur shirka Africa China ay lagu dhimayo saboolnimada qaaradda Afrika oo ka dhacay dalka Mauritius ayaa lagu heshiiyay qorsheynta siyaasadda iyo ku dhaqanka shuruudaha shirkan wakiilo ka kala socday dawladda ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka soo qayb galay shirkan oo uu daahfuray ra'iisul wasaaraha dalka Mauritius asagoo ku amaanay dawladda Shiinaha guusha ah in ay ka qaadeen saboolnimada 700 milyan oo qof muddo dhan 40 sanadood Shiinaha waa dal mudan in looga daydo sida ay uga guulgaareen saboolnimada iyo sida ay u horumariyeen dhaqaalaha iyadoo ay 400 milyan dadka Afrika ku nool yihiin saboolnimo haddana mas'uuliyiinta sare ayaa sheegay in wadada China ay tahay tusaale loo maro horumarka Shiinaha waxay astaysay sanada 2020 in gebi ahaanba ay ka takhalusto saboolnimada waa 10 sano ka hor sanada ay higsanayso qaramada midoobay oo ah 2030 taasi waxay inoo tahay dhiirigelin ku aadan la dagaalanka saboolnimada golaha gobolka ee horumarinta iyo la dagaalanka saboolnimada ayaa tababar u furay kalluumaysatada Afrika laga soo bilaabo wasiirada ilaa shaqaalaha hoose maanan wadaagin fikrad oo kaliya balse waxaan booqannay goobo badan waxaan ku rajo weynahay inaan wadaagno xalka aan higsanayno ee ah ciribtirka saboolnimada Afrika mas'uuliyiinta ayaa sidoo kale isku raacay in lagu dayan karo wadada ay Shiinaha u martay ka hortagga saboolnimada waxaan rabnaa inaan tijaabino wax kasta oo ka hirgalay meelaha kale mar aan tegay dalka Shiinaha waxay wadeen ciribtirka faqriga iyo waxyaabo laga hirgelin karo Afrika waxaa intaasi sii dheer in shirkan uu isdhex gelinayo horumarka raagay ee Shiinaha iyo dadaalka Afrika daawadayaal barnaamijkeennii kafadaha ganacsiga toddobaadkan intaas ayuu ka egyahay waxaa halkan barnaamijka idinkala socodsiinayay anigoo Axmed Cabdi Maxamed Axmed Toronto dhanka duubista barnaamijka iyo isku dubaridkiisana saaxiibkay Daahir Cabdulla Cali inta aan ku kulmayno barnaamijkan lamid ah waxaan idinkaga tegaynaa sidaa